السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي ماذا هذا الشركة لها أويلك وما أنت حالا كان إن لجوك تمرتيحان يعني هلا كل شغل له أو الرئيو كيث هيل الحوينا شركة أفريكان أويل عنكا بيترلاند وهوسقنا ماذا شركة الرينج ريسورسز مده هلا كان كوها ولا نايد ديفيد جريلمان وكان ماكس سووا مقعد كوها اللي هالكجوجي مدحدا كله oo ku wariiga madaxda dawladda madaxweynihii hore oo dawladda Puntland Maxamuud Muuse Xirsi isimada ganacsatada culamaa diinka marti sharafta dhamaantiin ba weyn salaamaya marka ugu horeeya waxaan jeclahay inaan mahad ballaaran u soo celiyo intii gacan nagu siisay oo ku dadaashay in maanta hawsha halkan aynu u nimi oo ah waxa loo yaqaan spat ceremony ama xafladda maanta riigu dhulka ku dhufanayo riig lagu dhufanayo petrolka qodayay halkan lagu dhufanayo aynu ku xusayno intiina halkan timi maanta oo dhan inaan mahadinii celiyo ma hadda u weyn ilaahay ka soko waxaan u celinayaa ciidamada qalabka sida oo ammaanka sugay oo ilaa halkan ilaa magaalada Boosaaso geed iyo nin u taagnaa haddana qoraxda taagan haddana diyaar u ah naftooda u horay in badani ku dhimatay in ku dhaawacantay inay ammaanka sugaan insha Allah ilaahay xaqiisa najisay ka helayaan aakhirana waa helayaan adduunkan abaalgud waa helayaan markii la soo saaro petrol. His Excellency, the President of Puntland starts off by sending greetings to the delegations from Africa Oil led by CEO President Mr. Keith Hill and the delegation from Range Resources led by Mr. Peter Landau, as well as the government, Puntland government officers, the former President of Puntland, His Excellency Adda Muse, the traditional elders, the Isims of Puntland, the business community, the religious elders and the religious scholars, the independent media and the ladies, the guests of honor. The President sends his greetings for today, for attending this very important event in the history of Puntland as well as Somalia, and for participating at the spudding ceremony to mark the day when the drilling operations start here in Puntland. And the President also sends his praises to Allah subhanahu wa ta'ala, God Almighty, and to the government forces of Puntland State, who are standing guard day and night protecting our state and our people. waxa weeye maanta maalin weyn waa maalin qiimo iyo qaado inoo leh waxa weeye waxa la oran karaa waxa weeye riyadii baa xaqiiq noqotay the dream come true muddo 50 sano iyo ka badana ayaa shirkada petrol baaraya Soomaaliya imaanayeen waliba gaar ahaan deegaankan Puntland hadda uu yahay markasta markii wax soo dhawaadaan si un bay wax noqonayeen wararka qaarkood dadka Soomaalida waxay oran jireen minda shirkaduhu intay waxa meesha ku arkaan bay xawaalaan waxay yiraahdaan kayd ha loo dhigo oo qarniga 21aad waxa la soo baxo hadda qarniga 21aad baan joognaa petrolka haddu soo baxaya. Today marks a historic day, as the President stated before, marking the day when drilling operations start here in Puntland. The President says for over 50 years, the people of Somalia, and particularly this region, have been expecting to see the beginning of oil drilling operations. It has happened in the past where oil companies came to this region, particularly of Somalia, and perhaps found things and did not complete the exploration activities, with some saying that maybe in the 21st century they will begin drilling. And the President wants to say that the 21st century is now, and we are here today. waxa weeye wixii horta Ilaahay idmo ayaa rumooba waxa Soomaalida ku mahmaada wixii waa ragu kaca la oran jiray Rabbi saaqbal hadda waxa weeye wixii dad u kaco Rabbi saaqbal waa rumoobaan oo dumarkaaba hadda ina ka hawl badan inkastoo laga xoog badan yahay waxa weeye hawsha halkan maanta taala waxay u baahnayd xoolo badan oo inaan inagu heli karin reer Puntland
iyo Soomaaliya midna iyo aqoon know-how iyo technology intaasoo iskaashaday ayay u baahnayd iyadana Soomaali iyo Puntland midna ma heli karin dad dibadeed baa keenay oo geesinimo u yeeshay inay hantidooda geliyaan halkaasi ay uga soo saaraan oil. The operation that began here, that we all gather here today, costs a lot of money, requires a lot of technical expertise and a lot of technological know-how, and so it's not the people of Puntland or Somalia that have the financial capability or other requirements to undertake such a massive project. It is an honor that companies have risked their investments to allow for today, and the President thanks the companies who have done so. arrintaas marka waxaan mahad weyn uga celinayaa dadkii hantidaas lahaa iyo dadkii halabuurka lahaa oo hadday halakan ninka halakan laga magacaabay Peterland ee ugu horeeyay inay geesinimo u heleen inay hantidooda halkaas miday dadka soo ururshaan iyo miday leeyihiin ba geliya. The President wants to thank the pioneers who had the creativity to begin this project, beginning with Mr. Peter Landau, who showed courage when he brought his company and his investment, both private and company, to be invested here in Puntland, and the President wants to take all the companies participating. hawshan waxaa la bilaabay sidii horeba loo sheegay 2005 hadal haynteeda iyo wax la qabto dawladdan anu madaxda ka horeysay oo Maxamuud Muuse Xirsi madaxda ka ah aniguna wasiir ka ahaa hawshaas bilowgeeda hal waqtigaas uu ahaa waxyaalo badan baa xoolaha jiray wixii jirayna waa ka baxeen meesha waa la saxay saxidka bacdi 3 sano iyo 8 bari way qaadatay in ay soo dhamaato inaanu wixii la qaban lahaa oo ugu dambeeyay riigii maanta halkan aynu u nimi inaynu xafladan ka qayb galno oo godkii qodidiisa bilaabayo. This project has taken a long time. As stated before, it started in 2005 during the term of His Excellency President Adda Musa, and it has taken a lot of time and energy, and the last 3 years there's been many changes going towards the positive direction, and that's why after being on the positive track for so long we are here today. waxaad ogtihiin wadamada maanta adduunka ugu qanisan waa wadamada batroolka leh batrool in la helo inta aynii sheegay bay u baahan tahay haddii aynu helnay dad hantidoodii iyo qalabkoodii iyo xooggoodii iyo naftoodiiba meesha keenay inay hawsha qabtaan innaga waxayna kaga soo aaday qayb sahlan oo ah inaan nabadgelyada ilaalino inaan sabur yeelano sidii leena ka codsaday in wada shaqayn ay jirto inaan khilaaf dhinacna ka imaan in loo wada qumo oo dhinac walba laga xijiyo in hawshaas qiimaha iyo qaayaha leh projectkaas oo hagaago ayaa ina ku soo hagaagay annaga haddaan xukuumadii nahay shacabkiina ka wakiilnahay arrintaas ilaa haddeer intaa qabanayna waa ka muuqataa waanu sheegaynaa shirkadaha iyo dadkaba inta dhimana annaga iyo dadka yaga iyo ciidanka yaga iyo dawladda iyo iskaashanayna waan dhamaystiri doonaa haddii aan leedo. As the President stated before, this project requires massive funding and technical expertise and people, and so if the companies have brought what was necessary to get to today and to begin the drilling operations, what is required of the people and the government of Puntland is to ensure security, to ensure brotherly cooperation between the companies, among the people and the government, and to have patience, as mentioned earlier in the speeches by the company leaders. And the President says he wants to assure the companies and the investors that all the work that the government has done is very evident, and whatever is missing will be seen in the coming days and years, and the government remains committed to security and to the success of this project. haddii ilaahay idmo waynu ka bixi doonaa baahida aynu qabno 3 sano aan hadda xafiiska joogay waxaan baryaynay dawladaha iyagu qaniga ah weliba qaas ahaan kuwa meelaha waxa ka soo baxa batroolkaas oo kale leh war noo dhisa xogaa mashaariica wadooyinka iyo aeroboorro ayna qaybtan Soomaaliya oo Puntland ayna hore nasiib ugu helin aanu ka barino hase yeeshee maanta haddii ilaahay khayr ka keeno ceelka ugu horeeya oo la yiraahdo Shabeelle waxa loogu magac daray ninkii bahalkii haraga wanaagsanaayo
shabeelka la oran jiray shabeella kow baa la yidhaahdaa shabeella wana 3 kilomitir buu inoo jirayna kama foga dabeedna libaax kow iyo libaax tuu baa nugaal laga qodi doonaa marka waxay la tahay inay nagaalina baryo mooye haddii meesha khayr ka soo baxo cid dambe baryi mayno waxaynu u baahannahay. His Excellency says, for the last 3 years during my administration, we have sent requests to foreign countries and brotherly nations of the world, particularly countries with oil wealth, to assist us here in Puntland, which is a region that has been neglected for decades by Somalia's governments, which lacks proper roads, proper infrastructure such as roads, airports, and other necessary public facilities. And His Excellency wants to tell the people that if this well, which is entitled Shabeella 1, succeeds in producing oil, then he wants to tell the people that Puntland will no longer be requesting help from anyone. midda kale aan jeclahay maanta halka inaan dadka ka xusuusiyo waxa weeye annagu haddaanu nahay dadka bakhaylka ah ama waxay ay isleeyihiin dalkiina waa laga helayaa la carara waxaan oran lahayn Soomaaliya waa ka goonay waxayaga cidina lama wadaagto mar hore aanu yeelnay cidna ka hortaagnina ma jirin laakiin waxaanu leenahay wixii halka laga helo ninna ku qadimaayo markii Soomaaliya xisaabtanto oo wax qaybsato oo dastuur yeelato kala haga wixii ay Puntland qayb khayraadkeeda ay ka leedahay ku cadaan doonaan wixii meelo kale iyo dawlad dhexe laga siin doonana waa la gaari doonaa ninna is oran haddii ay wax ka soo baxaan meeshaan waad ku qadaysaan Soomaali way wadaagi doontaa haddii alla idmo. His Excellency says, Puntland, if Puntland was, the people of Puntland were greedy, they have their own government, they would have declared independence a long time ago. However, that is not the case. They are willing to share their wealth and their resources with their Somali brothers, given accountability, a new agreed upon federal constitution that divides properly authority and power between the federal government and the state government. And the President says, any person who thinks that if Puntland produces oil or succeeds with this project, that other Somalis will not get their share, they are wrong. Puntland is willing to share with Somalis equitably what belongs to the rest of Somalis. sida hadda uu inii sheegay madaxweynaha shirkadda African Oil Keith Hill muddo qaadanaysaa in wixii la soo saaro markii 60 beri ama 90 beri la ogaado petrolka halka ku jira inuu shaqo galo muddo qaadanaysaa maaha inaynu sida dadka qaarkii malayn karaan in beri markii ceelku soo saaro jiirigaanaan ku dhaasano soo qaadanayno laakiin muddo qaadanaysaa hawl badan baa ka sokaysa laakiin mar haddii meesha wax laga helo shaqada furmaysa mashaariic badan baa ka furmaya kambaniyal kale badan baa qayb ka qaadan doona shaqayn doona waxa ugu horeeyo ka hirgalaa wuxuu noqon doonaa in shaqadu ay dadka hadda shaqada hayno dhalinyarada ah oo meel walba jaamacadaha ka baxay oo wax bartay iyo dadka iyagu xoogsatada ah oo iyagu aan wax aqoon laakiin xoogooda iyo xirfadooda ku xoogsanaya ay shaqo ka helaan cid walbana wax gaaraan ilaa ay noqoto meel sida wadamada hadda oilka soo saara meel dekedo iyo meel laga dhoofiyo ay yeelato Puntland insha Allah ta'ala mustaqbalka dhow. The President made reference to the comment from Africa Oil CEO Keith Hill, who stated that this project will take time, it will not come overnight, it will require patience from everyone and all parties involved. That being said, if and when this project succeeds, the President says the first beneficiaries will be the young people of Puntland, who will gain job opportunities to work, employment opportunities being the case, and more investments will come, given that today is the big drilling day, and more investment and more companies and more will be attracted to invest here in Puntland, given the conditions and the success of the project. ma soo koobaya aad iyo aad baan maqsuud uga ahay maanta inaan xafladan maanta halkan la isugu yimid martida sharaftan qiimaha leh iyo madaxda shirkadaha ajnabiga oo dhul badan ka yimi dhul fog ka yimi inaan halkan maanta aynu u noqono marag inuu ka bilaabmay Puntland ceelkii ugu horeeyay oo riigu maanta ku dhufanayo qodidiisi aad iyo aad baan maqsuud uga ahay